aad iyo aad la yaab u leh oo xanuun badan haddana maskaxda kama go'ayso inkastoo waqtigaas dheer la soo maray marka dagaalkaas waqtigaas oo jiray anigu koran kala socno Beledoglan jooga marka aniga waa la soconay si wanaagsan u la soconay raadiyaha waxaa isku xirnaa Beledoglan iyo Hargeysa waqtiga ugu dambeeyay waxaa loo baahday marka maadaama magaaladii la soo galay oo jabhadii magaalada ay ku jirto waxaa loo baahday in bambooyin la isticmaalo maxaan ku dhahaa boqol iyo koowaad madowna waxaa bilaabi doonaa guddiga 97 waajibkeedu yahay inay qabato wixii ka xigo midig wadada Sheekh Madar ilaa maxaan ku dhahaa meesha la yiraahdo maxaan ku dhahaa daamin oo labadaas wado cad oo horteena diyaaradii hore halkuu sii yilay ma qaadanayn bambooyin diyaaradaas marka loo baahday bambooyinka qaadan kara waxaana loo yeeray annagoo laba ah oo markaas laba diyaaradood oo xamartiil oo bambooyinka qaadi kara na la yidhi diyaaradaas qaata oo markaas si loogu isticmaalo guryaha iyo meelaha lagu jiro markaas laysku qari karo sidii halka ku nimi aniga iyo diyaarad kale laban ku ahayn hawshaa marka anigu xaqiiqdii markaan intaan xagga joogaba go'aankii wuxuu ahaa inaanan hawshaas fulin oo go'aan wuxuu ahaa xamar anoo jooga xataa Beledoglan intaanan ka soo bixinba oo go'aankii uu ahaa inaanan fulin laakiin kaliya fikirkeedu ahaa qaabka markaas aan uga bixi lahaa inaanan fulin marka markaan isweydiiyey kolleyba waxaa igula fiicnaatay inaan Jabuuti aan la aado diyaaradda waayo lama diidi karin oo amar diido way xanuun inaan isku rido waa ka fikiray oo yidhahdo waan xanuunsanahay haddana wax beena inaan sheego nafteydu maba u baranba marka haddana taasna waa ilaah habboonaa weysay iyo weliba anoo is iri wallaahi haddii oo adduunyadu ogaato waxa kale meesha ka dhacaya si adduunyaduba u ogaato oo markaas kabacdi maadaama qaris lagu hayo dagaal ma jiro meesha la lahaa in la ogaado oo arrintan mataqaana meesha ka socota oo gumaadka ah in adduunyadu ay ka war hesho in ayada lafteeda caawinayso inaan tago marka waxyaaba badan oo faa'iidaa inay ku jiraan inaan ogaada inaan baxo oo inaan xanuun sheegto iyo waxaasoo dhan ay ka faa'iido badan tahay inaan baxo adigoo marka aniga waxaan goosta bixitaankii inaan maalin subaxnimo inaan baxo oonan galab bixin marka galabtii ka horeysay ayaa naloo diray duulimaad iyadoo bambooyin ku xirrayn inaan magaalada aan rasaas ku furno adugu meelana loo cayimay oo nala tusiyo horena loo tusiyo maalintaasaan duulnay markaas waxay sheegtay aniga in diyaaradda cillad ay ku jirto cilladaasna waxay ahaday cillad oo aan ku soo arkay mar hore oo ii ahaday kayd oo aan leeyahay haddii galab wax lagu diro markaas kabacdi cilladdaa soo saar maxaa yeelay maadaama aan baxaayo oo aan si ku talagal ahayn oo xiriir aan jirin raadiya ah oo aan baxsad ahay waxay igula habboonay inaan subax kaliya baxo marka sidaasaan subaxdii ku baxay galabtii markaan soo noqdo maalinta dambe waa la diyaariyey bambooyinkaa lagu xiray aroortii waan wada kacnay labadeenna adugu 10kii subaxnimo dabadeed magaalada waxaa loo kacaya dhanka galbeedka loo kacaya airboortka marba dhanaa loo kacaa galbeedkaan u kacnay waxaan galnay leexasho midig hadba magaalada si markaas aan ugu rido bambooyinka
anigu markaaba waxaan qaatay jihadii Jabuuti oo markaasaan goostay inaan aado halkaas marka waa la yeeray waa raadiyaan iska damiyey markaa maadaama aan markaas ku talagelinba inaan wax waqtigaan iskaga lumin oo safarkaygaas aan ku talagalo maadaama aan ku socdo safar aan laygu talagelin oo xaggaasna aan ka naqon doono marti aan lagu talagelin marka raadiyo waan iska damiyey diyaaradda waa ciladaysan tahay ayaan iri raadiyana waa damiyey marka منطقة كاحل مين ما قتلت markaan gaaray aan qiyaasayo markaa ina waqtigii inuu Jabuuti inaan joogaa ayaan degaanda galay dhulkana ma arko waxa uma arkin ilaa aan ka arko dhulka markaan arko waxaan arkay khaliij Tajoora khaliij Tajoora waxa weeye wax yar marka la dhaafo Jabuuti waay waan soo noqday markaan dhameeyo soo noqoshadooda laxashadii jihada Jabuuti soo qaatay waxay ii daarmay reservadii diyaaradda oo 400 litir markay ka harsan tahay waa inaad degtaa waxay ku qoran tahay buugga nabadgelyada diyaaradda 400 markay nalkaas ugu daro inaad degtid meesha marka meel ugu dego inaan raadsado meesha doonto waata ama inaan ka baxo diyaaradda inaan ka boodid ama inaad degtid marka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ii sakhiray inaan arko badda xeebteeda biyaha iyo bariga halkay iska galaan ayaa waxaan arka meel yar oo siman oo mataqaanaa ku habboon markaas ama la dhihi karo waa meesha ugu roon la dhihi karo habboonaan lama dhihi karo laakiin waa meesha markaas uun lagu geli karo maaragtay la tijaabo sidaasaan halkii ugu degay kalluumaysataan helay oo maxaan idhaahdaa iyaga laftooda muddo aan doondoonay maxaa leena buur koray ahayd inaan wax fiirfiiriyo halkaasna cidna kama dhoweyn magaaladii ugu dhowayd magaalada Tajoora oon ka arkayo meel fog oo badda sidaas u soo gelaysaa bariga dhanka kale ayaan ka arkayo marka dabalna kuma gaari karin marka adugu nimankaan helo mar dambe nimankaan i keenay Jabuutina markaa dowladdii iyo xukunkii si wanaagsan ay soo dhaweeyeen